السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة باندين رجينا يا والله شرفت بضن ملكستو أدون كاد كتشوكتان مقال كان إن شاء الله وحي نقصه قادن دونا مرحلة وقوم معان إلا إله دارلين هون مرحلة وحي تهيا يا إن شاء الله كشرحي دونا مقال كان وحي جرتدتكم مركا يسكور سلام ay lamaane noqdaan hooy ay wada galaan ay guri dhistaan ay yagleeshaan marxaladda dadkeenu markiiba ay ka fakaraan bulshada Soomaalidu waxa weeyaan dadkaasi waxa ugu weyn ee ay kala helayaan inay tahay al-cilaaqa al-xamiimiyya xiriirka macaan ama waxa bulshada aynu naqaan galmada inay waxa ay kala helayaan laakiin waxa jira marka xaaladaha nolosha qoyska iyo dadku sida ay u dhaqmaan la eegayo ibn aadamku waxa uu maraa afar marxaladood ilaa dhalashadooda iyo ilaa dhimashadooda afarta marxaladood ee ibn aadamku uu maro marxaladda koobaad waxa lagu magacaabaa parenthood stage. Parenthood waa marxalad ilmuhu marka uu soo dhasho inuu ku barbaaro lagu barbaariyo gamcaha waalidiinta labada waalid ee dhalay inay adduunka ay ku soo dhaweeyaan oo ay ku ciyaarsiiyaan oo ay barbaariyaan ay koriyaan markuu marxaladda ka gudbo waxa uu galaa marxalad kale oo la yiraahdo brotherhood waa xaaladda walaalnimada ama dadka walaalaha walaalihii inuu la sheekaysto oo ay ciyaarsiiyaan uu ku indha dilaacsado walaaladii ay daadihiyaan marxaladda saddexaad waxa lagu magacaabaa friendhood waxa uu soo galaa saaxiibada kale ee bulshada inuu barto oo saaxiibo yeesho oo big group yeesho oo saaxiibadii la ciyaaro oo qof saaxiib leh uu noqdo oo uu goobaha fadhiisto oo iskuulada saaxiibadii u raaco ama goobaha marka waqtiyada uu ku qaadanayo saaxiibadii uu la qaato marxaladda marka uu ka gudbo qofku waa marxaladda ugu macaan ee uu galo oo waxa la yiraahdaa darlinghood waa marxaladda imika aynu ka sheekaynayno waa markuu galo marxaladda la yiraahdo gacaliye waxa uu qofku ku noqdaa inuu helo lamaan nina inuu haddii uu marka haweeney ay tahay inay nin hesho ayuunbay ku geli kartaa marxaladdan aadka u macaan ninkuna inuu naag helo ayuu ku geli karaa kadibna sidaas ay guri ku yeeshaan iyaguna lamaane ay noqdaan lamaankooda hal lamaan inta isku tagaan inay lamaane noqdaan marxaladda noocaas ayaa waxa la yiraahdaa darlinghood life marxaladani waxay markaa ay tahay marxaladda ugu macaan ee ibn aadamku ay ku noolaadaan laakiin waxaad moodaa marxaladdan markaynu joogno dadkeenu waxay ka fakaraan waa galmo iyo gogol iyo dadku inay markaas ay shahwad kala gudanayaan shahwadda haddii la soo qaato darlinghoodka ayay ku jirtaa oo ay qayb ka tahay yacni lamaanuhu markay isguursadaan inay shahwad kala gutaan waa qayb ka mid ah darlinghood life-ka noloshan aynu ka sheekaynayno qayb yar oo ka mid ah weeyaan laakiin way ka salbalaarantahay tani nolosha la yahay nolosha gacaliyaha ama marxaladda la yahay marxaladda gacaliye qofku inuu gacaliye u noqdo waa macaan iyo qaraar aad isku dhex milan baa la yiraahdaa waa meesha lagu dareemo farxadda ugu weyn raaxada ugu weyn dareenka ugu weyn shucuurta ugu weyn ka warhaynta ugu weyn wehelka ugu weyn safirka iyo qofka inuu jirkiisu safirmo ama jirkiisu inuu markaas uu safir sameeyo qofku uu taran sameeyo waa meesha laga helo waa meesha quruxda laga helo waa meesha dhadhanka laga helo waa meesha xasiloonida laga helo waa meesha deganaanshaha laga helo waa meesha nabadgelyada laga helo meel noocaas weeyaan qofku waa meesha ugu badan ee uu macaan nololeed uu ka heli karo waxaabay gaarsiiyaan qolyaha baxasyada ka diyaariya meeshii qofku marka uu dhashay gacantii ugu horeysay ee qabatay ee miisaanka ugu weyn lahayd labadaada waalid macaankii aanu ka helin xataa halkan buu ka helaabay leeyihiin yacni waad qiyaasi kartaa ilmuhu marka uu dhasho adduunka cidda ku soo dhawaysa waa labadiisa waalid waa marka uu ugu tamar yar yahay waa marka uu ugu daciifsan yahay waa marka uu ugu baahi badan yahay
haddana waxay leeyihiin raaxada iyo macaanka uu helo halkan marka noloshan lagu jiro la yahay darlinghoodka tan tuka helayo kamuu helin labadiisii waalid ama nolosha la yiraahdo parenthoodka kamuu soo helin bay leeyihiin tani markaas waxay taa dheer tahay qaraad baa isaga qudhiisu ku jira warwar baa ku jira danqasha ku jirta frustration baa ku jira stressful bay ayay ka mid tahay oo ku jirta يعني أنت قف كيلو سكوب وقمر كقار قف كلايلو كورورو responsibility بقى كوشرته دغشة سعيدة أيها كوشرته إسكور هاي سعيدة أيها كوشرته إسلادرين سعيدة أيها كوشرته إسكوحنان سعيدة أيها كوشرته وحالة هذه دين عمر كان لقى يقول كلاي بيلا هاي ومسؤوليات دي على سبيلا هاي قف بقى قف كان كحران حدا ودبر وحل هذا وبام قف ما سمعين كرو free movement مركا ورير ليه هاي يوقفك مركا عن غير لحين حتى يسكسيو ما سعون كرو يسكسيو ما هذي كرو ماشي تونا ما تجي كرو وحبس يربى من على جاية وحبس شرفيات بوقف كتيرة هذا مرحلة مهمة دينوس وقاعدنا يمحيتها هاي مهمة دينوس وقاعدنا وحويا قفك هدي ودون يوم إنه نرشة معان كذا دميو إنه نرشة معان كأبويا إلا هاي دميو وين كرسدان قولك معانك وبوين قفك ابن آدم كي الدنيا لو كهل كرايكو قاريا مركز وين عن المسؤوليات تكبقا وين عن تكبقا هذا وطبحا كوكو بحايا يدقارها لغا دوني دون وين عن تكبقا حبس شرفيت كاد قليسو وين عن تكبقا إن هذا وتمر كاد كورستو وفراقدو كوكو يران دونتو إن أديك اللجوء حدنا دورو حكاد مرتي حكاد قبطي سؤاله كلا دول اللجوء يدين دورو وين نروح هاي تمارس كدكتور قيبت معاني هاي نكتل معنى عدوانتها. أنت أصلا كسورني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.